gaagaale iyo raggii kala dhintayna meelaha mudan si aynu u xusuusnaano baynu ugu magac dari doonaa insha allahu tacaala. intii ay halkaa inagaga dhimatay shuhadada ahaydna carruurtay ka tageen iyo xaaska ka tageen waxay noqon doontaa wixii marba tamarteenu tahay. marka hore ilaaha subxaana wa tacaala aynu mahad u jeedinaynaa inoo suurtageliyey maanta kulankeennan muhiimaddiisu ay ahayd inaynu ugu mahad celinno oo ku soo dhowayno ciidankeenna sharafta badan ee halyeeyada ah ee ka adkaaday argagixisadii caalamiga ee daacish oo runtii naato oo 40 dowladood oo Maraykan horkacayo Syria iyo Ciraaq iyo Afghanistan kula diriray ayna ka adkaan waayeen. ciidankeenna guusha keenay waa guul taariikhi ah oo aynu xusuusnaan doono. waa guul laga qori doono buugaag badan aan filay inaysan ka maarmi doonin akademiyooyinka militariga iyo ciidamada in lagu baran doono. marka hore intii dhimatay oo ay ugu horeeyeen Janaraal Qalyare iyo saraakiishii kale korneylada ahaa iyo saraakiishii kale saraakiil xigeenadii iyo intii halkaa inaga shahiiday Allah subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryeynaa janno. ilaahay inuu janno ku risaaqo, cawl khayr qaba inaga siiyo, guriyihii awlaad ay ka tageenna uu maaragtay inuu xusnaan doono mas'uuliyad inaga saaran tahayna inay ilaahay cawl khayr qaba ugu bedelo iyaga iyo Puntlandba. intii ku dhaawacantayna ilaahay ugu boogadhayo. waa taariikh weyn, waa guul ay dowladda Puntland dadkeeda iyo shacabkeeda iyo ciidamadeedu wada leeyihiin. waa guul Soomaaliyeed, waa guul Afrikaan, waa guul caalami ah. waxaan kaloo si gaar ugu mahad celinaynaa guddigii laftigoodu barakaysnaa ee guddiga taakulaynta ee muddada intaa la eg shaqada gacanta ku hayay, wax walbana la qaybsanayay ciidamadeena halyeeyada. waxaan mahadda koowaad siinaynaa madaxweynaheena geesiga ah ee hoggaankiisa iyo hoggaanka muddada sanadka ugu jiray, marna carmo fadhiyay marna ugu jiray hera ciidan sidii uu ciidankaas hawshiisa shaqo kale uusan u qabteen. waa barnaamij si weyn loo qorsheeyey oo siyaasad dowladeeda isku tashi ahaa. waxaan kaloo u mahad celinaynaa dadkeenna ay ugu horeeyeen madaxda gobollada iyo degmooyinka iyo dadkii deeqsiyaasha ahaa ee taakulayntaas aad ogeydeen 12 kun oo ariya iyo intii aad geel ogeydeen iyo deeq intaba bixiyey. waxaan kaloo u mahad celinaynaa qurbo joogteennii la-aantooda inaan dagaal ka galleen tiro aan 3 milyan ka yarayn oo runtii iyadu inaga dabooshay dhaawacyadii intii hore. iyaga laftigoodu mahad ballaaran baynu u sheedinaynaa. waxay muujinaysaa isku duubnida iyo midnimadu inay guul leedahay. guushaa haddaan la wada qaban oo ay ugu horeeyaan intii u bareedhay inay qabadda qaataan Puntland qiimo weyn bay inoogu fadhidaa. in badan oo hore oo kuwa hadda dhintay ka horeeyay baa dhiigooda u soo huray. way ammaankooda ama dagaallo xag jir ha noqdeen ama ha noqdeen wax kaloo ammaanka dalkan mandaqadan lagu sugayo. dowlad ahaan waxaan ballan qaadi doonaa inaanu ciidamada ay noqdaan waxa u horeeya ee aanu insha allahu tacaala wax kasta priority-ga ka siino, kala istaagooda, tayeyntooda, daryeelkooda. intii ay halkaa inagaga dhimatay shuhadada ahaydna carruurtay ka tageen iyo xaaska ka tageen waxay noqon doontaa wixii marba tamarteenu tahay insha allahu tacaala in la iska xil saaro.
وأكتهين dagaalka guul baa laga gaaray gabagaba yar baa u dhiman insha Allah gabagabadaasna waa dhamaan doontaa tii kalena waa ina sugaysaa iyadu waa ka sahlan tahay guul weyn waa ka gaari doonaa waxa kale dagaalka guushiisa lagu gaaray taliyaha ciidanka daraawiishta iyo taliyaha booliska iyo madaxdii kale ee ciidamada hogaaminayay inay u dhabar adeegeen muddada sanadka inay laftigoodu way Puntland daraawiishta kale waa gali karaysa laakiin waxa xitaa channelkii booliska loogu kabay inay shaqada ugu weyn ee amniga Puntland saarana ay tahay waa ogtihiin taliyaha wiilkiisii baa ku dhintay taas waxay muujinaysaa inay nafoornimo rasmi ah iyo ka go'naan ee dalkan lagu difaacayo waxaan u malaynayaa General Qaryare meeshii ugu muhiimsan magaalada Galoweyne u bixinay oo barxadda ahayd insha Allah inta kale ee saddex korneyl iyo gaagaale iyo ragii kala dhintayna meelaha mudan si aynu u xusuusnaano baynu ugu magac dari doonaa insha Allah taala marra inaan hadalkaydu ku badiyo dadka reer Puntland meel ay joogaanba waxaan u dardaarmaynaa midnimo inaan Puntland ku faraadayno qiimo weyn bay nagu fadhidaa cadawga Puntland inaan meel uga soo wada jeesano argixisada ah insha Allah taala waxaan ciidamadeena iyo dadka reer Puntland u rajeynaa mustaqbal wanaagsan insha Allah taala waa taniqada iyo soo dhaweyn bay heedeen insha Allah kulamada iyo xaaladaha hoose ciidamadana insha Allah taala waa awal gacanta lagu hayaa waana lagu sii wadi doonaa insha Allah taala aad iyo aad baad u mahadsantiin jazakallahu khayr wa salaamu alaykum wa rahmatullahi